goobaha ganacsiga ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ganacsi oo xoogan iyadoo dadkuna ay u soo dukaamaysi tagayaan si ay u iibsadaan dharka maalinta ciidda iyo waliba agabyada kale ay u baahan yihiin si aan wax badan u ogaano dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee ka jira goobaha ganacsi ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxaan booqanay Muqdisho Mall oo ay ku yaalaan goobo ganacsi oo aad u fara badan xilligii aan booqanayna ayaa waxa ay ahayd meesha mid aad u mashquul badan dadkuna ay ku mashquulsan yihiin sidii ay u iibsan lahaayeen agabyada ay isticmaali lahaayeen maalinta ciidil fadriga qaar kamid ah ganacsatada oo aan kula kulanay Muqdisho Mall ayaa iyagu waxay ka warbixinayaan farqiga u dhaxeeya ciidil fadriga iyo waliba ciidihii hore ganacsiga marka laga hadlo ciidihii hore iyo ciidan difference u dhaxeeyo waxa kamid ah in ana maarta cudurka coronavirus dhararkii lagu tashanayay waxyaabihii lagu tashanayay inaysan imaanin marka waxa malaysaa in hadda bixiyeen soo gaarnay dadka si fiican u gadanayaan ana dukaankan yani maarta jooga badaacada iyo dadkiisa u imaanayaan say wax u gadanayaan ma sha Allah wallahi dukaameysi marka ka hadal ciid hore ciidan wax difference tasoo ugu dhaxeeyo inkastoo wadanku uu ku jiro dowlad iyo xawaasha kale ka jiraan saasay taan wax difference hadda isku weyn anaga ma dareemayno sida ciid hore u shaqeysan ciidan u shaqeysan dadka u soo dukaamaysi tagaya oo aan kula kulanay xilli ay iibsanayeen dharka iyo waliba kabaha ay xiran lahaayeen maalmaha ciidda oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin diyaar garowga maalinta ciidda meeshan Muqdisho Mall imid maanta imid maalweeto waa imid maantana waa imid waa markii ugu horeysay kulay second time ay imaado waaye waxaan u imid dhar ciida ina caruurta u gado ilma ila jooga ani familkayga qurbahay joogan maadaama lockdown-kii ana saameeyay marka halkaan ku ciidan aaday farxad igu tahay 13 sano kadib inaan Soomaaliya ku ciido ciidul fidriga oo ay ka harsan tahay maalmo qura ayaa waxa ciriiri laga dareemayaa goobaha ganacsi ee ku yaala magaalada Muqdisho dadkuna ay u soo dukaamaysi tagayaan goobaha ganacsiga si ay ugu diyaar garoobaan maalmaha ciidda Khadiija Xasan Cabdi warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.